odayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed waa warkii shiilaa ee aanu ku shaandhayn jirnay propagandada ka socota geyiga Soomaaliyeed dhamaantii afar qodob oo istaba cuskanaya ayaan halkan isugu keen qaban doonaa maanta dhalinyaro iyo intellectual idaacadda fidiya rukunta isu sii dira weeleeyala afarta qodob aan isugu keen qabanaya waxa ay kala tahay human behavior hab dhaqanka bini'aadanka sidoo hore ugu ballanayba ama cilmu nafsiga ama dadku soo dhaqmaan ama psychology-ga inaan mid ka soo qaado muddo inta aynu ku jiro si ay u garataan waxa ay haysaan jasiiratul waqwaq baynu ka hadlaynaa kulliyadda Cabdullaahi Askar la yiraahdo ee maleeshiyadaasi ka soo baxdo wixii ka socda iyo wixii ka socday iyo waxa maanta ka aragteen shirkadda la yiraahdo Trafigura ee uu soo kaxaystay Muuse Biixi ee dhaca ah ee la noocaatay DP Wallka iyo waxa ay tahay iyo waxa ay qabato aanu idin sharaxno koonfurta Soomaaliya iyo federaalka dawladda federaalka political agreement ereygi la lahaa inaanu idin sharaxno ee la khalday ama wada hadal siyaasadeed human behavior-ka hab dhaqanka bini'aadanka inagu afar qodob oo hore oo psychology ah ama cilmu nafsi ah oo aan mar walba kordhigaynay deegaanadan iyo dadka ka taliya nooca yihiin imikana waxaanu halka ku soo koobaynaa warbixin jaamacadda Madrid ku taala Madrid University ay ka qortay afarta kaliya ee ugu fudud ee lagu kala qiyaasto qofka bini'aadanka ah ee wax loo dhiibanayo waa optimistic inuu yahay waxa weeye waa qof rajo ku nool ah oo aan qalbi xumo lahayn waa pessimist waa dayro waa qof rajo xumo ku nool oo dayro ku nool trusting qof ilaahay iyo dadkuba waxa ay u sheegaan aamina islaamuna runu sheeg islaamayna run uga qaada ah envious kaanu socda waa ka xasad iyo shuuqniin waxa jasiiratul waqwaq ka taagani waa xasad iyo shuuqniin taariikh boob nacayb colaad intaas oo isa saaran waayo waa characteristic waa dhaqan psychology ah oo maskaxda qofka intii hore soo sheegnayna tan ayaa u sii raacda political agreement-ka laga hadlayo ama heshiis siyaasadeedka la leeyahay waa laga gaaray dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa biyo colaashay waxna kama jiraan political agreement ereyga la yiraahdo ama heshiis siyaasadeed balorta araf ingiriisi dhalinyarada ugu mariyo waa an agreement discussed negotiated ratified and agreed upon every elected member of politics or in a parliament waa wada hadal la mariyay oo lagu garnaqsaday oo lagu wada hadlay oo ay ansixiyeen markii laga garnaqsaday ee lagu wada hadlay ee la isu fariistay ee jilib carro ay noqotay garnaqsigaasi ay ansixiyeen lana horgeeyay baarlamaan oo xubin walba oo la doortay majority-geedu ay saxeexday kaas ayaa la yiraahdaa wada hadal siyaasadeed ama political agreement haddaanay kuwaasi ansixin garnaqsiga hore ee la soo maray labada qof ee bini'aadanka ee suuqa jooga haddii ay contract heshiis wada gelayaan mid siyaasadeed haba inoo dambeeye kow ama waa inuu noqdaa qoraal ay ku qoraan labo hadday ku wada hadlaan waa inuu markhaati dhex jooga saddex waa in wadada sharciga haddii aan waxa sharci marin oo gudiyay aanay ka garniqin sharci macnihiisu maaha ee waa laba qof oo meel ku sheekaystay iyo towtow contract written or spoken agreement badanaabana muxuu ka dhacaa waa qof shaqo ka doonaya employment sale guri la kala iibsanayo ama jago listening crazy wax la kala kareysanayo intended to be enforceable by law waa inuu salka ku hayaa sharcigaana waxa soo sameeya baarlamaan sharciga baarlamaanku markuu dhameeyay hadii boqortooyo tahay boqorka ama boqoradaas loo geeyaa oo ratified-kii ku samaysa oo ansixisa oo saxeexda heshiiskii hore ee Soomaali u yaalay ayaa wali baarlamaanka yaala ee qof iyo codka aha kan kale ee imka la keenay political agreement maaha waxa weeye wada hadal ama war saxaafadeed shir ay niman iyo nin madaxweyne ay wada galeen halkaasana loo gudbinayaa markaas uu sharci noqonaya ama uu sharci la'aan noqonaya waa marka loo raaco xeerka caalamiga ah taaytaaynu ku dhaafno kulliyaddan maleeshiyadu ka soo baxday ee loo bixiyay in askariga heegada 70% ciidamada wadanka jooga jasiiratul waqwaqda saraakiishooda marka horeba gacanta waxay ugu jirtaa waa nimanka imika uma sidii ruwan ku kiciyay dadku ku soo tooseen oo leeyahay 10kii qof ee ugu sareeyay ee dhalinyaraha ee ka soo baxa 6 ayaa heega noqotay afarna Soomaaliland waxa lagu sheego ama jasiiratul waqwaq inteeda kale ayay noqotay 5 qodob ayaanu hore idigu soo sheegnay oo meeshan 30 sanaba ay ku soo shaqeynaysay maaha intan lagu baraarugo lacag fuulsa ah oo hore la idigu soo samaystay meel kasta oo wada ah oo laga baxo ama airport ha ama dekad in gacanta lagu qabto
wixii Jabuuti ay kaga wada shirtay heegada tii meesha timi iyo tii kale ku xoreysay ayaa kamid ahayd dhammaan institutionada aqoontu ka soo baxdo ama waxa arday dibadda loo dirayo ama iskuulka sheekh ama jaamacad inaanu qofku aqligiisa iyo cilmigiisa kaga soo bixin ay heeganimo noqoto waxa qualificationka waxa lagu qaato sharciga ama shahaado lagu qaato inay heeganimo noqoto shidaalka iyo tamarta iyo korontada inta in gacanta lagu hayo in ciidamada ay gacanta ku hayaan wasiirada awbtiin hay'ad kasta oo wax ka baxaan ama mid lacageeda habsan soo sharaxnay ama mid ciidan inay iyagu hor fadhiyaan waxa idigu filan waxa ugu dambeeyay meedii ka la siisido shirkii kulmiye waa arkayso Oromo ayaa la keenay laha waa habar jeclo oo meesha ka hadlaysay xafiiska gohoontiga ee habar jeclada Oromadaas waa kuwii gabiile ku codeeyay ee 80% ka keenay waa identity theft waa tuugo waa sharci darro waa qof aan citizen ba wadankii ka ahayn oo citizen laga dhigay waa kuwii ka codeynayay Hargeysa iyo Burco iyo gabiile iyo meel walba ee tii hore lagu galay maanta uu raac gacanta idigu hayo ee aad ku galeysaan waxay ahayd inay soo baxaan kuwa mucaaradka sheeganaya kuwa kale meesha jooga intellectualka sheeganaya lagana gaadho 40 qof ee aan aqliga iyo cilmiga lahayn way siyaasaddu kuma shaqeyso caadifad iyo dareen xeer iyo xeegaan bay ku shaqeysaa midna inooma muuqdo Trafigura nimanka la yiraahdo shirkada la yiraahdo waxa shirkada ay la abuuray 1993 shirkadaha ugu waaweyn ee suuqa madow ku shaqeysta ee dhoofiya alaabta ceydin sida khaasatan gaasta ama petroleumka waxa ka soo baxa oo dhan ayay ka mid tahay oilka gaasta lafteeda refined productska waxa laga sameeyo dhammaan oilka soo baxa shidaalka waxa laga sameeyaa daamur baa laga sameeyaa xayd baa laga sameeyaa alaabooyin kale oo loo isticmaalo warshadaha kiimikada ayaa laga sameeyaa intaaba way gudbiyaan materialka biraha culus sida aluminumka birta ayay ka shaqeeyaan all mineralska macdanta oo dhanna way ka shaqeeyaan qayb kale oo transportationka ah oo wax rarta waxna soo dejisana way leeyihiin raw materialka laftiisa Trafigura waxay kaloo leedahay qayb kale oo qodaalka ah arinta loo keensadayna waa in macaadintiina lagu qoto khaasatan gobolkan Sanaag meesha ay ku waajahantay iyo gacan libaax way ninka keensaday isagu deegaana male meel uu qotana male arinta loo keenay waa DP Wall kale oo kuwii hore ay ku macaasheen qaybta bariga qaybta galbeedka DP Wall koodii weeye Trafigura hadaa maqashaan hadaa baadhaan caalamka waxa ka yaala sumcadda u taala sumcad xumada ugu weyn waxa kaliya ee lagu xusuustaa waxa weeye suntii ay Afrika ku daadiyeen ee booskoodii la qabtay ee la soo taagay maxkamadda ee uu jeelka ku galay taas ayay caan kaga tahay xagga caalamka reputation ay leedahay ma jirto macdanta iyo dahabka iyo wadanka waxa ku jira ayaana la doonayaa mar labaad sidii uu ahayd dhaqanka nimanka meesha jooga in lagu boobo aan idii soo gunaanado mar labaad fidiya rukunta isgaarsiiyana si aanu warkani cidla inoogaga dhicin waxa jirta mahmaah la yiraahdo useful idiots toqon faa'iido leh waa jin dagaagay nimanka la yiraahdo ummadoodii ayay baabiyeen oo sandareero ku qaateen waxaas oo sharciga waxa loo keensanayaana ee waxa soo oroma loo siinayo calanka xisbiga ka dare ama kulmiyana macna kale maaha waa sidii idinka la idigu sii haysan lahaa meeshan been lies built on lies baahida mahmaahdi filosofisku been kaliya idima haysatay waa been kale laga kordhisay dhul iyo degaan waxaan la hadlayaa dadka dhammaan degan meesha la yiraahdo waqooyiga Soomaaliya ama jasiiratul waqwa land without people for people without the land dad dhul haysta oo aanan garanin macnaha ay leedahay dhulkani dad aan dhul haysan oo garanaya macnaha ay leedahay ayaa meesha loo keenayaa kulmiye iyo Muuse waa mahmaahdi waxa haysta riwaayadii Ingiriiska laga dhigay ninkii Danishka lahaa qarnigii 17aad the king is naked boqorku wuu qaaway waxa xisbiga la idigu sheegayo waxa systemka la idigu sheegayo waxa dawladda la idigu sheegayo wixiiba weydi hortimi idinku aan uma baahnayn aqalna uma baahna siyaasadna uma baahna falanqeynna uma baahna oramada ka dare soo kaxeeyay halka istubtay waa kuwii waraaqaha hore loogu qaybiyay imaantana riyaraac ayaa u jooga horey Soomaalidu u tiri dado roob noqon weyday meeshan ninkan kama dambeynayso laakiin raggan la jilaya ee daaniska la ciyaaraya laftoodu yaani waqti badan dhalinyaro idiga luminin idinka ayaa dhex jooga oo ay idin muuqataa tuugtan doonaysa inay meesha dahabkeeda iyo macdanteeda iyo buuraheeda idinka oo nool la idigu korlaysto musuqmaasuqna waa wuxuu ka xun yahay dabka qabsada cawska caalamka waxa lagala dagaalamo dimuqraasigu waa ereygaas waa ka koobaad dhiigiini iyo dhulkiini ayaa la doonayaa idinka oo soo tuban oo soo jeeda in lagu dhaxlo system aan jirin oo iyo distoor aan jirin iyo oromo aan jirin iyo doorasho aan jirin iyo dimuqraadiyad aan jirin banaanna la istaajiyo
dhammaantiin intaasaan idigu soo koobayaa fidiya rukunta isgaadhsiiya weeleeyana wax alaale waxay u baahan tihiin ee aan rabtaa inaynu wada falanqaylana halka hoose ayaa ii soo dhigaysaan dhammaantiin waa mahadsantiin nooli kulantee